السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha Soomaaliyeed waan idin wada salaamay salaanta islaamka. Salaan ka bacdi waxaan rabaa halkan inaan ka soo jeediyo maanta oo ay tahay taariikhdu 18 Febraayo 2021. uma soo galin inaan hadalka badbadiyo, laakiin waxaan rabaa halkan inaan digniin culus ugu jeediyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. dadka ku nool aan rabaa inaan xoogaa yar ka iraahdo wax yar oo maanta isbaraarujin ah oo isxasuusin ah. walaalayaal, saan ognahay waddankan annaga iska leh, ilaahay nagu manaystay alxamdu shukru. waxaana laga doonayaa inaan xafidano ilaashano xuquuqdiisana aan bixino aan siino. walaalayaal, saan ogsoonahay waddanka kan waxaa xuquuqdiisa nagu leh dowladda Soomaaliya in ay naga qaadato canshuur ayna nagu ilaaliso ammaankeenana ay sugto ayaa waajib ku ah. ka bacdi walaalayaal, ayaamahan waxaa soo ifbaxaya in oo maalinta hadda berri ay tahay loo ballansan yahay mudaaharaad. walaalayaal, saan ogsoonahay mudaaharaadkaasi waxaa soo abaabulaya dad isku tilmaamay inay yihiin mucaarad. marka dadkaas walaalahayga mucaaradka ah waxaan leeyahay, saad sheegteen oo ka dhawaajiseen khayr Allah idin siiyo. mucaarad silmi ayaad sheegteen oo nabdoon. marka waxaa laga rabaa baad tiraahdeen xuquuqdiisana in ay dowladda ilaaliso, ay ka ilaaliso wax kastoo arbushaad keenaya ama dhibaato u keenaya shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintoodaba. marka waxaan leeyahay walaalayaal, mudaaharaad hala dhiga ma xuma, laakiin waxaan idinka codsanayaa shacabkana u sheegayaa waxay tahay inaan fawdo la kicinin. wax kastoo dhibaatadiina ama dhibkiina waa ka hadli kartaan, waa idin wada furan tahay, laakiin waxaan ka digayaa mar walbo inay fawdo iyo qashqashaad ay meesha ka dhacdo oo waddankii qalalaasa uu galo. marka walaalayaal, dan inooguma jirto dhammaanteenba, mucaarad iyo muxaafad, shacab iyo kulligeenba dan inooguma jirto waddankaasi inuu dhibaato ka dhacdo. marka waxaan ku baraarujinayaa oo aan xasuusinayaa ciidamada in ay ammaanka shacabkaasi ay sugaan, aysan wax dhibaato aysan u geysanin shacabkooda. maxaa yeelay shacabkaasi walaalayaal maanta haddii wax la gaarsiiyo ama dhibaato la gaarsiiyo, waxa ka qoomamaynaya hooyooyinkeena iyo aabbayaasheena iyo walaalaheena dhammaanba. marka waxaan rajaynayaa inuusan meeshaasi dhiig ku daadanin walaalayaal, waana iga dardaaran. اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.